kulanti wanaagsan saaxiibada ku xiran Demi Show. Caawa waxaan ka hadlayaa muuqaalka la isla wareegayo baraha bulshada oo iska leedahay gabadha Soomaaliyeed ee Quen Canab. Quen Canab waxaa helay muuqaalkaasi ka faafiyay kuwo aan lahayn dhimir Soomaaliyeed. Dumarka Soomaaliyeed iyo ragga waa dad walaalo ah oo wada dhashay. Ma wada xuma ragga Soomaaliyeed, gabdhuhuna waa sidoo kale. Haddii uu jiro wiil xun Soomaaliyeed, waxaa jira gabar xun oo Soomaaliyeed. Quen Canab waxaa laga faafiyay sawirro muuqaalo ay qaawan tahay, balse ragga Soomaaliyeed kulligood waa wada damac badan yihiin, balse waxay u kala badan yihiin kala hamiga iyo sidoo qofka ula hadlo. Waxaa jira jawaab aad u qurux badan oo gabdhaha Soomaaliyeed aysan ogeyn. Haddii ogaan lahaayeenna wax walba ma aysan dhacdeen, ilaa waxa la qadaray mooyee tanana waa waxa la qadaray iyo taxadar la'aan. Wiilku markuu ku yiraahdo ii soo dir sawir qaawan ama muuqaal qaawan, muxuu ku tarayaa? Waa inaad weydiisid. maya waa jawaabta ugu dhameystiran ee aad sii kartid. Quen Canab waxay isticmaashaa social media dhinaca TikTok ay aad ugu badan tahay. sawirada iyo muuqaalada ay soo bandhigto ma ahan kuwa dhaqanka Soomaaliyeed u wanaagsan markii si loo fiiriyo, balse damiir dumarnimo qofka uu ku jiro uu ka damqanaya. Ha ahaadeen sawirada ay soo bandhigi jirtay kuwa ay dharka qayb xiran tahay, balse muuqaalkani waa mid aad u taabtay dhaawacyada. Ilaahayna waxaan ku baryaa inuu markaasi boogaheeda dhayo. wax walba waa dhacaan, waana qadar Alle, balse samir iyo inay dulqaad yeelato haatan ka bacdina digtoonaato ayaan u rajeynayaa. gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantood aniguba aan ku jire taxadar ay u baahan yihiin. xijaabku waa sharaftaada, waa sharafta walaalkaaga, waa sharafta dhaqankaaga. xijaabka haddaad tuuratid ee aad dhigatid ee saarabta ay yeelatid waa wax dhibaato adiga ku ah. haddaba waa kuma ninka Quen Canab muuqaalkan ka faafiyay. sida ay sheegtay saaxiibo ay ahaayeen, waa ay ku kalsooneed waxa uu ka dalbaday inuu u soo duubto muuqaal. sidaa darteed ayay ugu gacan gelisay. markii isku dhaceena muuqaalkeeda ayuu ka faafiyay. ku maasantiina fadlan subscribe noo saar.